بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. waxaa noo soo socday fanniga fiqiga ah, khaasatan kitaabka abi shujaac. cashiradii fasaladii noo gaagaabnaa waxaan door bidnay in fasalkiiba cashir laga dhigo. hadduu fasalka yar yahay sidiisa cashiro noogu ahaado, haddii uu dhexdhexaad yahayna sidiisa cashiro noogu ahaado, hadduu ballaaran yahay oo faraha ka batana inaan kala goosano insha allahu tacaala. taasna waxaan u yeelaynaa in dadka isu ku daalin cashirka. qofka mar walba u duuban yahay 2 cashir iska dhigaysan karaa, 3 cashir iska dhigaysan karaa. haddii uu muddo fiican uusan haysan, fursad fiican uusan haysanna halkiis cashir ayuu ku gaabsanaa. dadka ibtidaa'iga ah si ugu daalin una fahmaan insha allahu tacaala. faslun wasiwaaku mustaxabun fi kulli xaal. fasalkan wuxuu nooga hadlayaa, waa darsiga 5aad. wuxuu nooga hadlayaa rumayga muxuu yahay, xugun ahaan shanta axkaamta muxuu ka yahay. ma jiraa waqti karaahi oo yahay fi lmadhab ashaaficiy, waqti oo sunnada aada mu-akada ugu tahay ma jiraa. wasiwaaku mustaxabun, wasiwaaku walistiyaaku, rumaysigu mustaxabun waa mid sunno ah oo la jeclaaday oo sunno ah. fii kulli xaalin, xaalad kasto ayuu sunno yahay. wasiwaaku walistiyaaku, wasiwaaku walistiyaaku, rumaysiga macnaha wasiwaaku waxaan u badalaynaa rumaygu waa qorayga lagu cadaysanayo. waxaan rabnaa marka ficilkii, waxaa laga hadlayaa ficilka. marka walistiyaaku, rumaysigu mustaxabun, sunno waay. mustaxabun waa mid la sunneeyey fii kulli xaalin, xaalad kasto. fii kulli xaalin, xaalad kasto ayaa la sunneeyey. waxaan kaloo dhihi karnaa wasiwaaku mudaaf ayaan soo qadiri karnaa o dhihno isticmaalu siwaaki, rumayga isticmaalkiisa. waxaa la rabaa waa isticmaalka, wax xukunka la saaraya waa isticmaalka, wax rumayga la saaraya waa ficilka rumaysiga. wasiwaaku wasticmaalu siwaaki, rumayga isticmaalkiisa mustaxabun waa mid la jeclaado oo sunneeyey fii kulli xaalin, xaalad walba. xaalad walba, xaalad walba marka lagu leeyahay waa xaaladda adiga aada ku jirtid, zaman kasto xaalad aad ku jirtid kasta. haddaad jiifanaysid, haddaad soo kacdid, haddaad raashin cun rabtid, iyo haddii aad markaa cunto kadib ay tahay, haddii markaa salaad aad geli rabto ay tahay. fii kulli xaal, haddii aad tahay xaalad aad maraysid sakaraatulmowt aada maraysid, sunno waay. fii kulli xaal, xaalad walba ayuu rumaysigu sunno uu yahay. ilaa bacda azawaali, geeska zuulka kadib uusan sunno ahayn. lisaa'imi, midka sooman haddii loo nisbeeyo. qofka sooman bacda zawaal, 6 saac markii la gaaro wixii ka dambeeyo karaahi ayuu u yahay. ilaa bacda azawaal ayaan loo sunnaynin, xilligaas waa karaahiyu u yahay lisaa'imi, qofka sooman. waa fi lmadhab ashaaficiyi, fi lmadhab ashaaficiy. imaam nawowi masaladan daliil ahaan markuu u baaray wuxuu leeyahay karaahi ma aha. uu khilaafiyey, wuxuu ku khilaafiyey xagga daliil ahaan min jihati daliil, laakiin madhabka wuxuu qabiyaa in bacda zawaal saa'imka uusan sunno u ahayn inuu rumaysto. isigoo ka qaadanayo xadiidka oo dhahayo qofka saa'imka ah dacarta amba riixda kasoo baxayso adyab min riixi miski waayo. adyab min riixi miski, way ka caraf badan tahay riixu miskiga. marka wuxuu leeyahay waa ahartaas amba riixdaas waxaa keenay cibaado, waxay ku timid waa cibaado. cibaadadaas in la baabi'iyaan
waxay noqonaysaa raadkeeda in la baabi'iyaa karaahiya noqonaysaa ayuu leeyahay sheekhayna sheekh Shaafici. wuxuuna u kaashanaa meelo badan u kaashanaa waxaa ka mid ah nabi muuse calayhi salaatu wasalaam calaa nabiyina calayhi salaatu wasalaam in markii la amray inuu soomo 30 maalmood kadib oo munaajaadka rabbi oo sameeyo oo yimaado makaanka munaajaadkii inuu sameeyey rumaysi markuu sameeyey loogu kordhiyey asigoo 10 loogu kordhiyey 44 looga dhigay ayadoo leeyahay maxaa u zuulisay afkaada riixda ka soo go'ayso cibaado iyo ku timid ma ahan wax xun ma aha waa cibaado ku timid taas u kaashana waa weheshi waxaa jirto markii wala weysaysto ama qabees waajib laga soo baxo in qofka oo safarinta qaato isqalajiyo in ay karaahi ay tahay oo rasuulka salaam iska celiyay waxyaabo isku qalaji lahay iska celiyay hadii soo cudur aysan jirin la iska celiyo macnaha wax la isku qalaji lahay iska celiyay maxaa yeelay waa raad oo ka yimid xagga cibaado qabeeska ad qabeysatay raadkaas kugu yaala waa raad cibaado qoyaankaas hadaa weysaysatay waa qoyaan xagga cibaado ku yimid in iska baabi'iya marka marka raadiso cudur jadin nijaasa ku gaarayso qabow badanaa jiro dhibaato ku keenaa waxyaabahaas kale ku banaanaysa laakiin haddii ciladaas aysan jirin sunna waxaa ah in ku baaqi ahaado cibaadada xataa inta macnaa qoyaankaas oo jiro afartaas ajirkaas sii socdo marka meelahaas uu kaashanayo iyo sheekhiina xukumay in karaahi ay tahay imaam Nawawi soo sheegnay min jihati daliil inuu arrintaas ku khilaafay oo tusimaydo leeyahay in dhibaato keenaydo haddii la baabi'iyo dhibaato keenaydo haddii daliilka la fiiriyay وهو حق مذهب كلنا سياسة اللقبان سيجنا وهو في 3 مواضع وهو سواق في 3 مواضع 3 ميلاد أشد متقدر واستحبابا من استحباب حق صنوني ماذا 3 ميلاد ودريه شيخ حقسوقاته 3 ميلاد حقسوقاته لكن ميلاد بدو أدو في عيوه الصنم مؤكدة وياها يسكبدا عند تغير الفم أفكر دورسون كيس أفكر إسبدل كيس agteeda ayuu aad ugu daran yahay afka doorsoonkiisa isbedelkiisa agtiisa ayuu aad ugu daran yahay xagga sunanimada min azmin shib darteed u doorsoomo doorsoonka isbedelku wuxuu ka imaanaa xagga riixda oo riixdaada isbedeshay xagga midabku ka imaan karaa markaas waxaa sunna ah inaad carabka aad carfisid hadduu riixda iska bedelay hadduu midabku iska bedelayna aad cadaysid afkii min azmin shib darteed shibta waxaa laga wadaa cuna la-aan waxba ma cuninba afka hadduu wax cuni waayo zaman uu wax cuni waayo afka wax marsii waayo wuu isbedelaa waxaa kaloo la yidhahdaa azmiga haddaad shib iska tira afkaad isku haysatid waxna aadan akrinaynin sida noqota oo isbedel kara markuu isbedelo idana inaad cadaysatid sunna waaye waliba ashad ahum akada وغيره غير الأزمي من غير الأزمي الشيء غير كذا درتاد اسكو بدلو أزمي أو حنكون فسرني ترك الأكل إن عود لقته أما السكوت طويل مصدر غير الأزمي حنا غنا مركه هدي أن كون فسرني أزمي السكوت طويل غير الأزمي حنا غنا إن أخس كذا هذا الكذا وبطي أخس كذا ما هذا الكذا وبطي هذا نكون فسرنا ترك الأكل غير كوحون غنى الأكل بذير ريح كريه ريح شيء ريح ذي ساي كريهاتها سي بصل تون وحيابها أعنطي كاس ولا أفكي أسكو بدل إنا عديستيد أي الصناء عدرتيد وحاس ورايو مدواتس كو سدح ميل نور شيء شيخي
تنكر هو عند القيام استاج أكتي سواء كمت قدرا من النوم هرد الاستاج عند القيام معنى عند استيقاظ وكسوك عرض من النوم هرد وكسوك برار وكسوك عو إنه رميستا يا صنع وعند القيام إلى الصلاة مركو الصلاة وسو استاجا وعند القيام استاج أكتيس أيو كدرين حاجة صنع ماذا إلى الصلاة صلاة لو استاج مركو صلاة استاج يسيد إنها رميستيد هذا أي صنع هدوسن ألف كذا وسن ديك إيمانين أفكار ديك إيمان أيو مرة ميسانيس محايرة أفكار نجاسة باي كده بدنا لغات شدة على كل مثال لكن هذه أو أفكار كإيمانين ديك دكتور على سو أجر كصلاة أد يوسي كردا أجر كصلاة أد يوسي كردية والله سبحانه وتعالى أعلم.